ذلك مات إلى هاي وحي يوسي سومالي لان ذل عن البلد وبعثنا وهل أمرنا ويتربينا وإياه وأنت عندك بلا مات عام وترتوايا وحنقول فارنا بيزنس كمان برايفت سيكتر سومالي لان شقايو ay qabteen qaranka u qabtaan waxayaan maanta ay ku hogaaminayaan waxaan leeyahay dawladdu waxay gacan buuxda siinaysaa private sector-ka ama baayaca mushtarka xorta si dalku hore u maro waayo waxa la waaday dalka aan baayaca mushtarku soo hore u marsanay ee aan dawladdu kordhin baayaca mushtarka xorta iyo suuqa xorta inaan u hore marin taama waa iskaashanayna iyagana waxaan ku codsanaynaa inay nala galaan sidii dhalinyarada sidii uu sheegay dowladda maxkamadda sare dhalinyarada fikirka wuxuu awoodaya keento dhaqaalaha ay isu diraan dowladda iyo barnaamijyada oo iskaashada marwada oo dadkeena horumariyo taasaan ugu baahanaa intaan halkaasay waxaan u gudbayaa geeska Afrika iyo dabaylaha horumarka ay isbedelka ka socdo marka koowaad waxaan hambalyo kaliya loo diraya oo aad Soomaaliya u hambalyeynaysa dowladda deegaanka Soomaaliyeed madaxweynaha Ukraine ay doorteen iyo sida nabadgelyada ah ee xiisadii ka caddeeyay waan ku hambalyeynaa waan u ducaynaynaa horumarka wajahada waxaan aad u weynaa oo aad u taageeraynaa sagaal boqol ay soo saareen baarlamaanka madaxweynaha Ukraine qodobka shanaad ee oranaya waxaan ku dadaalaynaa oo aan furnaa isdhexgalka labada dal waxaan soo dhaweynaynaa istixqaar dhinac walba isku diin baynu nahay isku dhaqan baynu nahay isku af baynu nahay waaleynu nahay waxbaynu leeyahay waynu isu baanahay xadka isticmaalka iyabaa ila kala xidhiidh waxaan Soomaaliland boqolkiiba taageeraysaa in la fudaydiyo istixqaarka ganacsiga dhaqanka ciyaaraha tarawadaadka oo ay isku mid noqdaan oo sidii la isaga talagalay xadka jijiga qabritaha goday hargeysa iyo qof walba soo doorada u gaar gaar ganacsan karo ayaa u dooranaya Soomaaliya inta kale bariyahan dalashada socotay ee horumarka sarraha damba waxa ay isu qiyaasaynaa sida uu waajaheen labada caasimadood ee Addis Ababa iyo Muqdisho Addis Ababa saddex sagaashii waxay qormaatay oo iyagu taageereen madax bannaanida Eritrea Muqdisho iyo dowladda waxay ka dagaalantay madax bannaanida Soomaaliya ee dowladda ku soo noqotay sanadkan sideed toogada ku jiro Addis Ababa waxay qaadeen tallaabo walaadii dhex martay Eritrea Ethiopia Prime Minister-ka President Zahra Ethiopia oo isagu lagu soo tagay Addis Ababa Asmara oo uu ogolaado waxay ku barmayaan oo dhaana awood taabo tabarin oo ogolaadeen walaalayaal iskaashada Muqdisho dadka ka taliya 2018 waxay qaadeen tallaabo Soomaaliland cirkan ku xidhayna oo cid soo geli kara maysa Soomaaliland badan ku xidhayna oo barbar ciidamada karto oo markaan cirkan ku ka xidhay barigaan ka weeraraya oo dhaar gool ku siiyo inaan ka soo weeraray dhinaca bariga Soomaaliland waa laba aqli oo isgarab yaala raayiga sabay yaala iyo ka bulshada yaala waxaan leenahay anagu walba waxaan taageeray dhinaca wanaagsan ee xadka Soomaaliyeed ee shanta Soomaaliyeed ku qashan tahay waa kii Afrika lagu qaybiyay Talyaani Ingiriiski Faransiiski iyo Kenya iyo Ethiopia Afrika oo dhan sharcigaas waa ku qasabaya caalamka anagu baanaan keenin kamera gudbi karo ma bedeli karo waxa Afrika ku heshiisay ee caalamka ku heshiiyay waxaan jecelahay Soomaaliyeed isku mid ah oo wax walba wadaagta sida caalamka waxa ku qaybiyeen in la isku ixtiraamo cid waliba waxa ay dhisanaysaa aayaheeda iyo mustaqbalkeeda siyaasiga wixii kale walaatinimada la wadaago waxaan u sheegaynaa dad badan oo ka dhaadhiciya caalamka Soomaaliland way goosatay oo Soomaaliya ay diidan tahay xaasha lillah Soomaaliland marka la yiraahdo Soomaali waa halka ugu horreeyay Soomaalida ku dhaadata ee islaamnimada ku dhaadata ee isticmaalka dagaalkiisa ka bilowday markaad ka sii bilowday ilaa daraawishti Maxamed Cabdullaahi Xasan waa Soomaaliland taariikhna waa Soomaaliland waa taariikh Soomaaliland leedahay ee aad ku soo dambaysiiso kii waadada ee Sheekh Bashiir iyo ragiisa ay raayeen
aad ku soo xigsiiso kii xisbiyada SNL iyo USB intaasoo dhan waa mid ay ka wareysay Soomaaliland shanta Soomaaliyeedna mid aanay halkan ku martigelin oo aanay wanaagiisa iyo waxtarkiisa jeclayn male dadkii awooyaasha iyo aabayaasha aad uga joogay annaguna wadadii baanu haynaa Soomaali jacaylka laakiin waxa la soo diraya Soomaali sidee ku midaysaa wax qabsanaysa cirkii dukaan ka weeraraya ma tashakartid ma hadli kartid adoon intaan bahay haddaad Italiya tan maxaad sameynaysaa ayaa la ragay mudsha jooga ee wali bilaa ku marayna Soomaaliland weeraraya taana waxaan u tusaynaa in Soomaaliland u diyaar tahay Soomaali meel joogta ma nabad iyo wax wada qabsi iyo waxa ka dhaxeeya waxay soo tahay ee aana ahayn Soomaaliland diida balse diidaysa tala guracaan oo qorib caaladii Soomaaliland waa muqaddas midnimadu تيم مقدس كالله ويستعنا وحولانا ومقدس إلى كرة الشباب مركز الأشياء هذه أدوى ما تنتهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته